الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاو تاريخ ويتهاي صدقي بشي كواد محرم كن يافر بقول يصدح فرتنك هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ووافق سنة الضبادي بشي سجالات لبكن يكوبي لباتنك وحال كان كلا يسوي من والصحافات كان كسر صار هي علماء قبل كتقدير وهي هرمود أوتهاي هيدا وناك فريستا حمار هيبستا هي ملكيلياشا هدالك ليلة هذا إيش برعو waxaana isla gaadheen qodobadan soo socda kow in laga heshiiyey khilaafkii aadka loo buunbuuniyey ee ka socday social media bishii tagtay khilaafkaasoo lagu dhameeyey is-afgarad iyo wanaag bulshada gobolka iyo dhammaan waddankaba faa'iido ugu jirto. qodobka labaad in meel looga soo wada jeesto wax kasta oo dalqaaf iyo qalad ku ah diinta islaamka iyo dhaqankeena suuban amaba ka hor imanaya. qodobka saddexaad in waxgaradka gobolka sida culimada, ganacsatada, dhaqanka ama odayaasha dhaqanka iyo dhammaan bulshada inteeda kale oo dhan ay meel uga soo wada jeestaan horumarka gobolka iyo ka degmadaba. qodobka afraad waxay baaq u dirayaan culimada iyo ganacsatada iyo waxgaradka gobolku dhammaantood cid kasta oo doonaysa inay gobolka iyo degmadaba ay wax u qabtaan ama horumariyaan ama qurba joog ha noqdaan ama qolqol joog ha noqdaan waxqabadkaas iyo horumarintaas oo togan kana qayb qaataan horumarinta gobolka iyo degmada. wabillahi tawfiiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله إسوكا كاني أخيارتا أيوه الريان ملكي لياشا إيش برعو ونعاوى مرتئنا هاي ولا تشوقنو علماء الدين كي قبلك أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي هرمود طهي صلاة دين تردقنك قدومية كحجين كي دجمدة يرنتي أخيار بدن أو جناح السطح يو أضياش المجال ده باله الشركة يجني وحدارنية هي وجهرين وحكست أو بالشدة إن ضنوا آخر دي أدون كده بقى يو إنه ودعينا إنه خير يواناقنا ورجينا إنه هردال كنا نشوقنا ورنتي أخيارته سوكر للسي وحقا مركا أي سوكر للسي مقالة يو دقمة يو قبل قبا هرمر في عن الله مهديه وحنا اللي إسكا كاشتنا يا دمان تيو أنه إسكو دوبان وحكستو آخرة يا أدون كبداني كتشرتو وحويا إن أنفعي في الدنيا والآخرة iyo horumarka magaalada iyo hanuunka wanaagsan ilaahayna subhanahu wa ta'ala haynaga dhigo kuwii wanaaga dhamaanteen isku garabsada khayr dhamaanteen hayna waafajiyo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa qodobada iyo afgaradka iyo islaam xaalashada qiimaha badan leh. bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmaciin. sida waxaan joognaa hudaalkii cusba ee Isha Burco, culimadii, hay'adii, ganacsatadii, salaadiintii sida uu sheegay Dr. Sheekh Faysal Maxamed Cali waxaan isla garanay oo aan isla gaarnay xoogay khilaafaadka haye tashuushka haye galay marka wadanka ama mass media ama lis afkaran waay inaan dhamaynay oo hawshaasi ay dhamaatay meel wanaagsan ay noo marayso. qodobka koowaadna waxa weeye in marka dadka ka faa'iideysanaya doonaya dadka inay madax isu galiyaan ama isku diraan ama xumaanta sameeyaan aan uga digayno taas inaanay macquul ahayn. dadku haday wanaag wadaan ama horumar wadaan ama wax bulshada anfac u ah gobolka iyo dalka iyo dalkaba waxa weeye waa isfahmaya. sida darteed jirsada ama fadhigan waxa weeye go'aamadaas ka soo baxay
waan is afgaranay hay'ad ahaan culimo ahaan ganacsato ahaan iyo salaadiin ahaanba waxaan isku afgaranay in wax alla wixii dhaqanka ku xun ee xumaanta diinta ku xun meel looga soo wada jeedo saasaan isku afgaranay halkaan in laga sii wado la isuna kaashado danta guud ee markaa gobolka iyo horumarkiisa waxaanu gacmo furan ku soo dhaweynaynaa gobol ahaan gobolka Togdheer cid kastoo danaynaysa horumarkiisa iyo markaa maalgelintiisa gudiga dibadba inay markaa diyaar aanu nahay sida awgeed waxaan ugu baaqaynaa bulshadeynta gobolka Togdheer iyo dibadeedaba in gobolka Burco maanta hadii la lahaa khilaaf iyo waxba ka taagtaagan inaan khilaafkii dhamaynay meel lagu soo wada jeedno anagoo wada fadhina miis wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim marka horeysa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa inaan halkan isugu nimaadno culimaadoyinkii gobolka ganacsatada gobolka odayaashii qaar kamid ah gobolka qaayidum uu hogaaminayo adeer Faarax Yuusuf Xarigle salaadiintii qaar kamid ah golaha deegaanka matalayo meerka xigeenka Muxtaar aad iyo aad jalsad aad iyo aad u fiican baan ugu dhacday halkan waa habeenkii labaad oo ay ka dhacday iscafis isaamax wada shaqayn horumarkii gobolka laga wada shaqeynayo oo wixiina dhex maray aan iska cafinay taasina way dhamaatay markan waxa naga go'an inteeda halka joogtay inta kaleba inaan ka wada shaqeyno horumarkii gobolka Burcona qurbajoogoodii way u baahan yihiin inay soo noqdaan oo dhistaan saan aniga iyo Suldaan Cabdiraxmaan Ali Jaamac Galalbaanu isugu daynayntii yareedan haysanayna gobolka ugu faa'iideyno idinkuna qofku markuu daaga heer gaadho waxa fiican inuu ku soo noqdo qofku markuu gababo waxa la xataa xoolo waxa ku noqdaan gurigoodii marka waxaan baaq u diranaa qurbajoogii reer Burco iyo qolqoljoba iyo dadkii kale doonayeen maalgashadaan sida ay shuyuukhdu sheegtay inay ku soo dhiiradaan oo turxaantii aanu ka saarnay halka aanu soo laab xaadnay caawa cafisaam halka ay ka dhacday oo aanu naga go'antay inaan horumarka Burco laga shaqeeyo iyo dameen wixii kale khuseeyaba hadii mid diimatay mid dhaqan tahay mid dhaqaale tahayba bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan soo dhaweynayaa culimada gobolka maayarka xigeenka gobolka odayaasha reer Burco iyo tujaarta intaba aad iyo aad baan caawa ugu faraxsanahay in aynu halkan ku dhamaystiro isafgaranshihii aynu gaadhnay doctorku qodobadiisii halkan inooga sheegay diyaar baan u nahay fulintiisana aad iyo aadna waa u mahadsantihiin ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dhammaanteen sida uu khayrku ku jiro ilaahayna uu raalli ka yahay ay inugu qabsoomaan wax kasta oo aynu qabanaba والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بقى مهد لمركو جوه الرئيسة مهد على لك بعدي توحى مهد إسكالة إدي جلسدنا سواقا بنقابسي وأدالة مي كلن كهل كانوا نسوق نمي نعاو هل كان إنه wada fadhino ku dhamaysanay arimihii gobolka oo loo fikiray waxyaalihii maartay bariyahan de la wareegay maartay meediyaha ama maartay la qaadqaadayna de halka hawsheedii lagu reebay aad iyo aad baanu ugu faraxsanaano ku hadlay afkii rugta ganacsiga gobolka Togdheer arinka meesha aanu joognana waxa weeyaan in gobolkii la sii horumariyo wuxuu u baahan yahay hareeraha laga wada joogo oo maartay la maal gashado ganacsatadu dibadda gudoba ay isaga timaado waxyaalo badan oo hodan ah gobolka yaala laga faa'iideysto marka halkan caawa odayaashii oo halkan ku dhamay salaadiintii oo ugu horeeyaan Suldaan Ali Jaamac oo hantidihii hotelkan hadda inoo maalgeliyay qiimaha leh iyo Abti Jaamac oo isaguna insha Allah waxyaalo badan oo wanaagsan wadanka ka qabtay laba oo hadalad aad u soo dadaalay oo loo dhan yahay waxaan leenahay shuusho bax cidii maartay hawsha meelaha wax la warwareegi jirtay Burco khilaaf ka jira dhibaato halkan jirta ciideeman mayso wixaas waa shuusho bax weeye hadda laga bilaabana waxa loo dhaqaaqaynaa inaan gobolkii maartay gacmaha la isugu wadageeyo horumarkiisii iyo maartay iskaashigiisii
oo dhinaca ay tahayba laga maalgashado. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. waxaan salaamayaa culimadiinta, ganacsatada, salaadiinta, mulkiilayaasha hoteelkan caawa aynu joogno ee Isha Burco, Suldaan Cali iyo Jaamac. dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan, caawa anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada Burco, runtii munaasibadan iyo shirkan qiimaha badan leh inaanu ka soo qayb galno oo gunaanadkiisii iyo khulaasayntiisii iyo natiijadiisii aanu goobjoog ka noqonno, runtii farxad bay noo tahay. ciddii soo abaabushay iyo ciddii isku soo xilqaantay iyo ciddii wakhtiga soo gelisay intaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. bacdal mahadnaq waxaanu soo dhaweynaynaa qodobada wax ka oolka ee caawa culimada iyo mulkiilayaasha hoteelka iyo ganacsataduba iyo salaadiintuba ay isku waafaqeen, ay sida wadajirka u qaateen. runtii annagu haddaanu nahay golaha deegaanka farxad bay noo tahay. khilaafaadka la buunbuuninayey ma garanaysaa laga dhaxaloosayey hoteelka iyo culimada ee annaguna geesta saddexaad aanu ka soo gelaynay lalahaa mas-uuliyiintii la doortay ee da'da yar waxba way ka qaban waayeen waxyaabaha dadku buunbuuninayeen iyadana wax weyna jirin. runtii caawa inaan halkan waxayagba ku soo gebagabeynno farxad aad iyo aad u qiimo badan bay noo tahay. gobolkan Togdheer ama degmada Burco gudaheeda waxaa dhaqan u ah wax kasta oo ku soo kordha in miis isugu yimaado oo la xalliyo oo markaa si wada jira wixii loo qaatayna loo fuliyo loo galbiyaba oo dhaqan u leeyahay. waana si ahayd wixii ragu kaco rabbi sa aqbalo way rumoobaan. caawa annaga farxad bay noo tahay maadaama oo si wada jira ganacsatadeennii maalgashiga horumarka ballaaran samaysay aynu soo dhaweynay. horumarkoodana insha Allah tacaala ay sii lamalaabi doonaan oo halka ka sii wadi doonaan, maadaama oo dee horumarka lagu tartamayo iyo waxyaabaha quruxda badan leh inayna inaguna ciddii waxay noo soo kordhisay inaan iska eriin oo si aan de gobolada kale inooga faa'iideysan oo aan gobolka inooga ciloobin. aad iyo aad baan culimada noogu mahad celinaynaa, ganacsatada noogu mahad celinaynaa, salaadiinta noogu mahad celinaynaa. insha Allah tacaala sida wanaagsan caawa soo afkarateen isu saamaxdeen ayaanu annaguna qayb idin kala nahay, idin kula soo dhaweynaynaa. aad iyo aadna culimadu waa ugu mahad celinaynaa. Suldaan Cali iyo Jaamacna aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. xalana sida qiimaha lahayd ee culimadii safarka noogu timi ay u soo dhaweeyeen oo isu sugootiyeen iyadana aad baan ugu mahad celinaynaa. culimadiinka gobolka iyo hay'adana insha Allah tacaala waa la shaqeyn doonaa, iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan ee u shaqeynayaan. dhammaantiin waa idin mahad celinaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.